kulanti wanaagsan mar kale asxaabay meel kastoo aad joogteen kusoo dhawaada barnaamijkeenii koobaad waa barnaamijkii ugu horeeyay saakay oo axada aan idiin soo gudbinayo haddaba barnaamijkan oo waxaanu kusoo qaadan doonaa qodobo aada muhiim u ah waxaana ka mid ah sida aan idiin sheegay qodobka muhiimka ah ma nool yahay Netanyahu mise way la tagtay oo waa dhintay wararkii ugu dambeeyay sheekada maalmaha la isla dhexmarayay wararkii ugu dambeeyay ayaanu halkaa idinkaga soo gudbin doonaa laakiin marka hore waxaynu ku bilaabaynaa xalay mar kale ayay waxay u ahayd Israa'iil habeen kale oo ciriiri ah gantaalaha Iiraan ayaa waxaa la sheegay inay ku daadanayeen bartamaha ilaa magaalada Tel Aviv ilaa dhanka Casqalaan iyo Haifa Hezbollah ayaa dhankeeda iyaduna waday weeraro ay ku qaadaysay goobaha fariisimada iyo talisyada ciidanka Israa'iil haddaba xaaladdu waxay u muuqatay xalay mar kale mid kala carar iyo cabsi la soo diristay Yahuudi haddaba wararkii ugu dambeeyay saakay laga qoray sheekada ayaynu barnaamijka ku bilaabaynaa haddaba jariirada la yiraahdo Haaretz ee ka soo baxda Israa'iil ayaa saakay waxay qortay ayaa la leeyahay in markaasi warbixino dhinaca amniga ay heshay ay ku cadeynayso in Iiraan ay riday 400 oo gantaal oo nooca plastiga ah oo ay Israa'iil dhankeeda kaliya u soo riday haddaba waxaa la sheegayaa joornaalka Haaretz inuu leeyahay warbixinada amniga aynu helnay waxay muujinayaan in 400 oo gantaal ku dhawaad ay Iiraan ku soo weerartay Israa'iil waxaana la sheegayaa in tan iyo markii dagaalka uu bilowday meelo kala duwan oo ka mid ah Israa'iil ay gantaalahaas ku dhaceen way 400 oo gantaal goorway xisaabiyeen kaal sheeg xisaab haystaan waxay leeyihiin maalinku dagaalka bilowday ilaa hadda Israa'iil kaligeed 400 oo gantaal u luftay iska daa saldhigyadii Mareykanka wixii loo qaybiyay iyo wixii kale waxay leeyihiin waxa kan gantaaloodu ma dhamaadaan miya sheekadu 2 toddobaad ay sii socotaa sidee wax u jiraan ilay marka Israa'iil way hayn weysay oo maaragtay sheekadii way ku adkaatay xaalkina wuu ku kululaaday haddaba marka aan idin tuso mar kale telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay Israa'iil waxay fariin degdega u dirtay oo ay gaarsiisay Washington inay ka sii dhamaanayaan oo ay baaba'ayaan gantaalaha looga hortago oo ay Israa'iil ay haysatay waxayna u sheegtay inay tahay in gantaalo lala soo gaaro Israa'iil u fiirsada Israa'iil waa isdhiibaysaa mardhow watan hadda ka hor barnaamijyada intaan soo wadnay aan ku sheegnay 5 ilaa maartay 4 ilaa 5 toddobaad kadib annagu waxaan ku dagaalanay ma haynay inay yiraahdeen xaaladii marka wixii la filayay waxaan haynaa soo baxay 2 toddobaad 400 oo gantaal iyaga sheegtay ayaa nagtana looga saaray wixii aan haynin marka meeshaasayba ku dhamaadeen waa naaqiseen naqsiya ku dhacay waa gantaalihii oo waxa looga hortagay ma hayno Mareykan naga soo gaar macalinka weyn muxuu leeyahay anaa taydii ay haysataa oo leeyahay maraakiibtayda wixii aan ku difaacayay saldhigyadeedii ayaguna gabaabsi maxaa la sameeyaa dawladii Yurub oo la iska weynaysiinayay Trump ayaa hadda la baryayaa Ingiriiska wuxuu yiraahdeen waxaan diraynaa diyaarado ka hortaga diyaaradaha daroonka iyo gantaalaha iyo waxa kan ka hortaga ayaanu ku caawinaynaa saaxiibadeena gobolka marka saaxiib kale ma jiro carabtu waa uu la soo darayaa laakiin Israa'iil la rabaa in la difaaco waatii Faransiiska hore uu yiri isaguna maraakiibaan dirinay oo saaxiibadeena lagu difaacayo waxa soo dhan marka iyadii in lagu difaaca la rabaa marka xaalkuna halkaas uu marayaa saakay xaaladdu marka way kululaataa la leeyahay sheekada Netanyahu way noo soo socotaa laakiin markan war kale oo muhiim ah ka hormarinaynaa aad xasaasi u ah haddaba warkan waxaa la sheegayaa duqaymihii ugu dambeeyay Imaaraadka ayaa loogu roonaaday dhanka Carabta goob shidaalka ku saabsan ayaa dabku isqabsaday jugta laga geliyay Imaaraad waxaa la leeyahay waa qolada ugu badan ee maaragtay jugta ka gelisay jugta laga geliyay Carabta marka la yiraahdo Khaliijka marka hore qadar badnayd laakiin hadda Imaaraadkii ayaa si fiican loo garaacaya waayo waxaa la ku eedeynaysaa Iiraan meelihii ugu dambeeyay laga soo weeraray Iiraan gaar ahaan jasiiradii ugu dambeysay la weerarayay ee Iiraan shidaalka ka dhoofiso in maaragtay dhanka Imaaraadka looga yimid haddaba Imaaraadkii markaas uu ciqaabtii ayuu la kulmayaa
أنا دي تصور كي وجود بيساكي تلفزيون كالجزيرة وحولياي حفيزك ورفافين تأقابل سنة أبو ظبي أيا وحو شيء إن لحكمي دب حوق أو ككعي ديجان كليرادو ورشد شدال كصوصارة ليرادو برويس ماشي ليرادو وحنا لشيء إن هلكا دب حوق أو ككعي هذا الدب كان أيا وحال شيء إنه كنا شيء ديارة الدرونة أو لغو ويراري هالكاس منطقة ليرادو الرويس دبكي أمريكا كعي إنما كي إمارات كأيقنا قيلدو ذا يريس مد كلام مركز صوب بحضي لليه هاي ديارة الدرونسكا إيران أي وحكو ويراريس وكوا كلو كوا إيران لو إكيسيي أيا كل حجرة ومريكن كي إسرائيل يقولون يكون حضر سنيان عربت إن شفت لقى قليل لأن خبير أو عربة أو لوريسني أيا وحو كدقي إن لقى يابو إن ورر حتى لقو قاضو حرمك أو إسرائيل يوحاش درونس تصدران إرادان إيران واي مسلمين تصير لوكعيو أريتانا وإلا قدقيا وحاليها وإلا قفيتشك نادا مركا إيران هذا وحي صوصارتي درونس كيدي ميت كالي أو لو إكيسية أساق oo weerarada dhinac way jira Iran marka waxay tiri anagu darookaas anagu ma lihin la socda hadaba keenna hamoodinina meeshaan dad badan kala adeeganaya tiri dad badan la rabaa dagaalkan in la soo galiyo hadaba markaan idin tusoo wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay Iran waxay tiri ciidamada Mareykanku waxay koobiyeynayaan diyaaradaheena daroonka ah waxayna ku bartilmaameedsanayaan dawladaha dariska ah haddaba sidaa arkaysaan marka sawirka labada diyaaradood ayaa la isbarbar dhigaya oo midna ay tahay midda saxda ah ee Iran ay leedahay midda kalena loo ekeysiyay midda Iran oo marka weerarada la sheegay in ay halka ka fulinayaan oo weerarada ay wax ka qaadayaan mawjida marka waxay leeyihiin diyaaradaheena la koobiyeynaya waa loo ekeysiinaya waxa leeyahay diyaaradan ti Iran waay sidoo kale u sameeyeen marka meesha hawlo badan ka socda waa tii Turkiga uu lahaa anagu hawadeena waa difaaci doonaa laakiin lugtana looma gelin doono dagaalkana lokuma riixi doono wax danooyin badan laga leeyahay dagaalkan inaan galnaa la rabaa laakiin anagu waa ka fiirsanayna ma galayno dhaay laakiin hawadeena iyo dhulkeena waa difaacinaa saan dadkii soo weerarayay noocay rabaan haadeen marka baaritaan nagu socdaa marka sheekadaasu marka iyadana isku dhaxkaraysa la yiraahdaa alaabta arabta jugta kaliya kuma hayaan awlaada iyo Iran ee alaab kale loo dhexgeliyay marka laga yaabo meelaha shidaalka iyo waxa kan muhiimka ah kulli la burburinayo la qarxinayo inay alaabtan drones iska leeyahay droonka galaya yaqaana hadii burburkeeda la arkana wuxuu u egyahay tii Iran oo kala loo sameeyay naqshadaas loo sameeyay marka Iran way ka digaysaa waxay leedahay ka feejignaada droonada qaar anaga ma lihin meesha dhex socda waati hadda koor wadanka diris kala Iran Azerbaijan droonana la ku weeraray ee Iran tir anaga ma marka sheekooyin badan marka halka ka jira oo xaaladu sidaas ay u kacsantahay waa tahay qodobkii marka muhiimka ah oo imaano ninkii Netanyahu ahaa ma nool yahay mise waa dhintay waxay noqotay su'aal la aad la isu weydiiyo warbaahinta gaar ahaan social media waxa dhex yaacaya waxa soo warara video AI looga shaki oo lix farood leh kan waa isagoo burbur hoostiisa meela nin isaga weeg laga soo saarayo waxyaabo badan ayaa social media qabsaday laakiin warbaahinta waa weyn sida Al Jazeera iyo kuwa waaweyn ee maxay uga gaabsanayaan inay arinka ka hadlaan marka nin khabiir oo la wareysanayay wuxuu yiri warbaahinta waa weyn warka iyagu ma samay karaan haduusan meesha wariye u joogin ama xogti aysan helin ma samay karaan wax meelaha socdana lagama sheekeyn karo laakiin waxa loo baahnaa ayuu leeyahay ninka suxufi hore ahaa wuxuu leeyahay waxa loo baahan yahay labada qolo ee dagaalamaysa qoladii falka geysatay inay xataa shaki muujiso tiraado weeraradeenii ugu dambeeyay waxaanu u malaynaynaa in ninka aynu ku khaarijinay ama ku dhaawacnay inay yiraahdaan sida Trump iyo Netanyahu markii aayatullaahiga bilowgiiba ay sheegayeen hadda wiilkiisu waa la dhaawacay Trump uu sheegaya waxa soo dhaw ka hadlaya laakiin Iran dhankeeda
ayaa warbixinada idaacadaha waaweyni inay ka qaataan ay ahayd ay markaa sii falanqeeyaan laakiin iiraantii ayaana ka hadlin weli oon dhihin ninkii waa ka takhalusnay ama ninkii waa dhaawacnay ama ninkii shakiya nooga jira meel uu ku jira nagta ka saarnay weli ma laga hayo madaxda waaweyn ee iiraan madaxweynaha iyo raggan taliyaasha wasiirka arrimaha dibadda lagama hayo marka wuxuu yidhi warbaahinta waaweyn sidaasay marka uga gaabsatay markii iiraan dhankeedii warbixino badan laga waayay ayaa xalay waxaa la waraystay xafiiska netanyahu ayaa wariyaal weydiiyeen waxay yidhaahdeen kaalay odagu ma dhintay mise waa nooli ma dhaawacmay sidee xaalkiisu yahay war kama haynee fiidiyoyada meesha la wadwado oo ninka 6 firooda loo sameeyey kana loo sameeyey asaga ma ayaa lagu sameeyey waxaan maxay yihiin ka hadlaa leeyahay waxaan waatahay haddaba marka jirada la yiraahdo al-Qudus ayaa waxay qortay saaki xafiiska Netanyahu ayaa ka hadlay arinta la leeyahay waa la dilay Netanyahu waxayna xafiisku beeninayaan wararka la isla dhexmarayo waxayna ku tilmaameen inay yihiin warar been ah sida xafiiska Netanyahu uu leeyahay haddaba jiradu waxay leedahay xafiiska Netanyahu oo arinta wax laga weydiiyay xalayto sabti ahayd ayaa waxa uu sheegay wararka ay warbaahinta gaar ahaan baraha bulshada la isla dhexmarayo in odaga la dilay ay tahay midaan waxba ka jirin wararkaas ayaa waxay sheegayeen qaar ka mid ah gantaalaha iyo sawaariikhda Iiraan inay ku habsadeen meel uu odaga ku jiray sida wararka yaacaya ay sheegayeen haddaba xafiiska Netanyahu wuxuu ku adkaysanayaa inaanu jirin sheekada wararkaas laakiin wariyaashu waxay ka codsadeen in odaga uu si buuxda u soo hadlo oo la yaqaano marka si aan AI iyo waxba looga shakinin odagu shir jaraa'id ha qabto ama ha hadlo haddaysan waxba gaarin aaway odaga ma dhaawacan yahay aaway shaki fara badan marka shakiga waa weynaado ogaad xafiiskiisii u tagay odagii keenaan leeyahay wax cad oo muujinaya inuu dhintay inuu nool yahay keenaan موجودة مركا ورياشة مركا وحليه إيران لنكذا يا وركا أبوي لجسوي مدحنا إذا معلوم والبواي هالله وزير كريمه دبده وهالله مدحوينها وهالله تلياشة إذا مضى وهالله قدوميها برلمان وهالله وحال الربي سيد النبات كم بأي حلقة وحشيجيان إني أيقونا وحسكشيجان markaas wariyaashu toos u qaadan lahay waxay dhihi lahayd wasiirka arrimaha dibadda Iiraan ayaa shaki ka muujiyay odaga in la dilay kan tafaasiil iyo sheeka la gali lahaa laakiin hadda waxa leeyahay adika waxa sameynaya xagee warka ka keenteen wariyaal ma idin jooga ayaa ka soo xigateen marka sheekada marka idaacadahan waaweyn gaaraan Al Jazeera waxyaabaha aanu ku aaminsanahay wararkooda waxa kamid ah warar aan la taxliilin oo aan laga fakarin ma la soo gudbinayo si aad u hesho marka war xaqiiqa oo kuwa reer galbeedku reer galbeedku waxay rabaan iska sheegaan laakiin iyaga reer galbeedna ma waa telefishin carabi leedahay hadii wax qalad sheegan maxkamada la fuulaya dhibaato waxba ku dhacay marka aad ay uga fakaraan marka sidaas marka Al Jazeera muhiim u tahay dagaalada inaynu wararka ka qaadano waa sida aniga ila tahay adikuna fakarkiina aragtidiina waad diiban kartaan qaybtan waxaynu ku soo qaadanaynaa dawladda Switzerland ayaa ka hortimid laba codsi oo maamulka Trump ay weydiisteen labada codsi maxay yihiin diyaaradaha Mareykanka ee u socda bariga dhexe inay maaragtay kuwa dagaalka waaye inaysan dul mari karin hawada Switzerland ayna ku soo degi karin oo shidaal iyo waxba ka qaadan karin dawladda Switzerland waxay leedahay siyaasad yaab leh waxa la yiraahdaa siyaasadda dhexdhexaadnimada la yiraahdaa annagu adduunkan wax kasto is haysta dhexdhexaada ka needeen laba gaashaanbuur markay jiri jirtay Warsaw iyo NATO iyagu dhexdhexaad waay annagu wax kasta dhexdhexaadana marka laba isdagaalaysa annagu shaqo ku malhiinade diyaarad dagaal u socoto qolo kale la dagaalaysa maxay hawadeena u maray maxay ugu soo degay Mareykan waxa la noqonayaan annaga dastuur noo qoran nidaamkeena ma burineen odaga markii hore waa la diiday kadib wuxuu isku dayay inuu handado haddana marlabaadkii waa diiday Switzerland haddaba markaa dadku soo wararkii ugu dambeeyay
telefishinka wargeyska Al-Qudus wuxuu leeyahay dowladda Switzerland way diiday laba dalab oo Mareykanka kaga timid in markaa hawadeeda diyaaradaha dagaalka Iiraan ku qaadaya ay isticmaalaan oo ay maraan ma jirtay anaga dastuura noo dhakan dhexdhexaadanaay dowlad dhexdhexaad adduunkana looga yaqaan siyaasadaas aan qaadanay waxa la siyaasadda dhexdhexaadnimada wixii isdagaala shaqo mu kulii marka sheekadaas halkaas iyaduna maraysa wararkaas ayaa ugu